بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن شاء الله. waxaan sii wadaynaa projectigii noo socday. insha allah waxaan ka bilaabaynaa maanta sida loo sameeyo slaabka aan ku xijinaynaa qaybta hoose oo dhan slaabkeeda ka dhamaanaynaa kadib insha allah wixii ka dambeeya kor aadaynaa marka. okay, intaas markaa sameyno kadib waxaan leenahay slaab noo imaa sabab marka column iyo beam goormaan isticmaalna marka dadka badan taas isweydiinaa. column iyo beam waa isticmaali kartaa waqti kasta aad dabaqa sameynaysid. somehow markaa rabtid inaan baleen ku sheegtid oo kale ama 3D ahaan ku sheegtid column iyo beamka aad ay u fiican yihiin, laakiin markaa rabtid inaad sawir qurux badan keentid ama design qurux badan ayaga muhiim ma naqanayaan. okay, sababtoo ah ayaga markii la isticmaalayo element of structure marka lagu diro oo kale ayaa isticmaalaysaa. su'aalo kale sidaan cabirkan haysata waxaa lagu dhahay element of structure soo yeel waxaa muhiim u tahay markaad dabaq sameynaysid inaad columns raacisid muhiim waay. okay, islaamaan gudubna marka waxaa leenahay slaabka kan ii dooro marka hore kadib inta waxaa idhahdaa 0.6 sidaas oo kale labada kor la ifur qaybta kore waxaa idhahdaa PQ 01 qaybta hoosena kaasuu saaran yahay guda kadibna waxaa dhahdaa geeskaas iyo qasaar geeska kalena iga soo saar markaa saartid kadibna intaan u baahnayn iga saar geeskan click dheh calaamada soo qaado soo minus ah kadib geeskan ka qabo inta gey kadib geeskan gey kadib geeskan gey kan gey kor dheer soo marsiiso xataa ugu dambeeyna kan keen. okay, intaas kadib waxaan u baahanahay marka slabski kale inaan sameeyo. marka slabkan kale waxaa leeyahay line soo qaad oo geeskan click markaa dhahdo kor waxaa usoo baxdaa dheer 0.5 u bax kadib kan soo celi ilaa daaqada afkeeda hore ii keen kadibna meesha ka keentay ku celi kadib intaan sigoo haysid waxaa dhahdaa filadan u baahanahay chamfer bade waxaana iga dhigtaa 1 iga dhig. okay, meelaha kale oo dhan ugu baahan hal dhinaca ugu baahnaa note soo qaado dhinacan toosi note kala qaado dhinacan kala toosi si qaybtaas u kaliya u noqoto. intaas markaa sameysid kadib waxaa dhahdaa meel geesa qabo click dheh pointyada madow kale kadib offset ka soo qaado control taabo waxaa banaan ku baxdaa dheh 0.3 mar kale soo qaado haddana control taabo 0.6 dheh. okay, intaas noo kale dheh marka kan koowaad ee ugu korayaan joogaa wax yar kan kale inaa ka degaa rabo marka waxaa ugu degtaa 15 ka jar kor 45 oo noqonaa kor hoosne negative 15 oo noqonaa. okay, qaybahani kan waa bedelma waa iswada lahaana sidoo kale ama kala duwanaado sidiis hore ka kore meesha kaas kaaga ahaa marbal ii dooro waa kan koowaad ka labaad soo dooro hadda ka labaad waxaa leedahay kor 15 kale 30 ka jar macnaha hoosna 30 u gaad kana waxaa ka dhigtaa marble stone marble ka dhig kaas ugu dambeeya haddana waxaa dhahdaa qaybta kore leh waxaa ka dhigtaa marble stone kala kaasna 15 bis ku soo reeb qaybtan hoosena negative 45 dheh dib okay dheh. intaas kadib waxaa dhahdaa wixii meeshan ku jiro dhan iga bixi marka kan iyo kanba inaad dooratid click dheh calaamada minuska aad geeskan click ku sii ilaa inta imaaw soo dhamaystir marka ilaa inta keen kadib inta keen kadib soo noqo ugu dambeyn meesheeda ku soo celi so intaasba qadka lagu wada saaro. okay, intaasaan aragna marka waxaan sameynay waa ka. okay, waxaan saarmay slaabka aad u qurux badan yahay rajayna. okay, waa ka marka intaas kadib waxaa u baahanahay marka meeshaan fadhiis kii weynaa marka
siibanaya waxaa leeyahay slab soo qaad kadibna kor waxaa ka dhigtaa 10 nebis hoosna waxaa ka dhigtaa -0.6 okay isoo wada lahaado tokadan waxaan iga sii dhigtaa cagaar ba iga sii dhigo ah lux green okay in rectangle ka dhig ilaa meeshaas oo kale ilaa intaas oo kala dooro 3D marka waa ka sas u fadhiyaa marka guriga si kale laawo kaaga fadhiyaa marka okay intaas waxaan ku dhameynay qaybta hoose way noogu dhamaatay waxay noo harimis inaan jaranjarta inta saarno okay jaranjarta marka inta keensana kadibna horaan ugu socon doona marka okay jaranjarta waa tan stair slabka noogu xigto qaybo badan ay leedahay qaybta oo U shape ka mujida U shape laakiin V shape somehow waa lahaa twin alaitan tana U shape caadi waag laakiin tan somehow qasna dadka qaar way dhahan okay marka kuwaan waa jeedi kartaa in aan u jeediye saynaana ugu soo aado sidaas oo kale dhererkeeda dhulka intuu yahay wax oo dhan samay okay kan waxaan dhahdaa horta baashan dhererkeeda gurigeena waa 3 mitir 40 balac ahaan loo haysanaa inkastoo 2 mitir 20 ka yareen ka badan kana 6 mitir 60 ka sidiisa u dhah intaas kadib waxaa dhahdaa qaybtan fur oo waxaa tagtaa qaybta right-ka iga fur dheereelka ama ha ku xirnaado kadib markaa aragna cilada kadib insha Allah fureyna okay kan waxaa raasaasan inuu jiifto marka hadii marka hore saan usoo jiifin marka inta tag preview kadibna waa ka iskasar geeskaas waa saartay kan geeskan kala saarma okay intaan aan aragna marka waa ka jartay si qurux badan way noogu saarmatay laakiin dhinacyada aan fiir wax ka maray oo inta ka soo dhaxbaxay jida waxaan rabaa marka ani kama raba ee kana raba reelka inaan qadka laga saaro sidaas darteed marka 2D aan ku naqana asagoo ay doono setting kan taga kadib waxaa leeyahay qaybta right ka qaad jeegalabis kadib waa ka kan dhaxda bis ku soo haray mujida kan dhaxda oo kaliya ayuu ku soo haray waa ka marka asiga 2 mitir ka yar kama qaadanayo 2 mitir iyo 20 u baahan yahay okay 2 mitir 40 dhay waliba inuu dhinacaha sidaas u galo raba okay intaas waxaan ku dhameynay ground floor ka insha Allah ground floor kan hadoo noo samaaday wixii ka dambeeyay waxa waxaad soo galeena dabaqeena. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.